dhinaca kale halow. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وهل سؤال قوي ku diyaarna. Mhm. Sheekhu dawladda oo Soomaaliya u shaqeeya nabadii nolol. Mhm. Marka waxa lacag ku qaataa dadkii oo mucaaradka soo horjeedina oo social media ku difaaco lacagtaas ku qaataa. Mhm. Diinta Islaamka maxay ka qabtaan? نعم lacagtaas xaaraan wey akhi jaajuusnimo wey lacagta jaajuusnimo lagu qaatana xaaraan ma midda kale qof fiiri bini aadanka ilaahay hadda waxa ayadaha aan soo jihaa antum jaadaltum canhu fi lxayaati addunya adduunya ayaa ku ka dooday ama aad wax ka sheegtay qof ina caysa diinta ma banaano kow qofka oo ahaado midda kale dembiga oo adiga aad galaysid ina qof kale u gashid qiyaamaha ka waran ina qof aad difaacda dembi aad tira anaa naarta ku galay anaa ku difaacay naarta adiga kursiga iyo sii fadhi aniga laakiin naar bareer hadaa tira maxaa ka faa'iido walidaalika dembigu akhi lacagta lagugu siiyey xaaraan wey maxaa dhacay dulmiga lagugu siiyey qof soocay ninka ku yidhaahdo dulmiga kugu siiyey dhowr jeerna waa ka digna arrintaas ilaahay ugu toobakeen camalkaasna toobada shuruudaheeda maxaa kamid a kow inaa ka baxdid hadda arrintaas aad joojisid wixii hore aad cuntay ilaahay ugu toobakeen haddii aad lacagtaas aad gudi kartid aad sadaqa ama isdhaafsi kartid isdhaafsi oo dad iyo jidada dhisaa ku dar toobada shuruudahaas haddii laga helo ilaahay subxana wataala inuu ka aqbala laga yaaba marka ilaahay u toobakeen qof muslim ayaa lagugu dirin qofka muslimka ah dadkan siyaasi isku haystaan kursi isku haystaan wax ka dantooda gaar isku haystaan adiga in lagu dirdiro oo lagu yidhaha hebel caay shaqo ma ahan kaas shaqo waxaa waye ummadda inaa wax u qabatid inaa waddankaas u dadaashid ahaa laakiin hebel caay iyo hebel lugooy iyo hebel soo jaajuus hadday tahay xaaraana ku jirta ilaahayna waxaan ka baryay ilahay xaqaas ku tusay su-aasha aa weydiisay waxaa laga yaabaa boqolaal inay jir saas loo shaqaaleysiiyey inay soomaalida quluubta isku keenaan maxaa yeelay ta'liif alquluub fiir waddanka sare la dhisay iyo ciidan la dhisay wuxuu tiraya mala ta'alif bayna quluubihim ilaahay inuu quluubta isjeclaysiiyo maxaa yeelay caayda quluubtay kala geysaa nabigu diinta waxay noo diiday gaalada inaa cayno ilaahadooda si ay diinta ilaahyadeena u caynin aa la diiday nabiga calayhi salatu wasalaam maalin wuxuu ku yidhi ma jeceliya midkiin inuu hooyadiis caayo markaas wuxuu yidhi ma waxaan midkiin hooyadiis markaa hooyadiis ninka soo caynaya wuxuu ninka kale hooyadiisa caynaysa adna hooyada lacana yaa hooyada caayada usoo jiiday adaa usoo jiiday wadaalika ummadan lakala geeyey oo social media la iskugu diray wadaniyaa tahay may aad gumaysa kalkaalaa tahay kanaa tahay la dhahayo waa waxyaabaha khatarta ee mustaqbalka islaamka oo biri oo naarta ummadda ay geynaysa weye marka ilahay ka cabsada dad walaalaa nahay waxaan isku haysana waa wax yaxr weye inta isku keeni karno dadka isku keenno laakiin inaan dadka kale sii geyno oo socialka usoo galno maanta qolada kale hala tuuro qolada kale waa laga badiyey maya ma kala badinayno waddanka khasaare ku qaba naga hata kala badino waddanka waa naga wen yahay nin kastoo deeqa ilaahay inaa ninka kale walaalkaa u naseexay kaasa uu hodoonka ugu orgari karaa walidaalika taageerayaashan faraha badan aad samaynaysaan diinteena waxaa laga yaba inaad tukatida laga yaaba maanta salaadaada ilahay inuu rafcin maxaa yeelay diinta dhinaca ka qaadata salaada ka tukataa laakiin halkan ummadaa kacaysa nabiga calayhi salatu wasalaam waa sheegay qiyaamaha muflisaa naqaysa adigu waxaa imaanaysaa salaad iyo soon oo ku aalin maxaa dhacay dadkaa dulmisa xasanaadkaaga la siinaya marka ilaahay siyaasiyiintiina iskendirin dad walaalaa nahay diinta isku jecel kuwan difaacayda siyaasiyiinta waxaa leeyahay ilahay ka cabsada waa xalaqada maanta kusoo qaada waa